الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa dhulka galay ama duugmay magaalo kamid ah magaalooyinka Soomaaliya qaasatan gobolka Mudug ee deegaanka Dhinowda loo yaqaano ee xeebaha bari ee gobolka Mudug bismillahir rahmaanir rahiim walal ku soo dhawow kanaalka Socdaal Bulsho barnaamijkani haddii uu ku cajabiyay like share iyo subscribe-ka waa xaqiina fikirkaagana waa inoo muhiim ee inoogu reeb commentiga si aad inoo dhiirigelisid bismillahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaa dhulka galay ama duugmay magaalo kamid ah magaalooyinka Soomaaliya qaasatan gobolka Mudug ee deegaanka Dhinowda loo yaqaano ee xeebaha bari ee gobolka Mudug aad ayaa aasay dhismooyinkii ku yaalay dhammaan deegaankan dadka ku nool deegaankanna waxa ay hadda la daalaadhacayaan hoy la'aan cunno la'aan iyo wixii la mid ah maadaama ay goobahoodii ganacsi uu bacaad daboolay dadka deegaankan ku noolaa ayaa meheradooda ganacsi uu ku tiirsanaa kaluumeysiga maadaama uu yahay deegaan xeebeed wax keed ahna ma haystaan oo kaluumeysato oo kaliya ayay ahaayeen intooda badan hadda waxa ay ummadda Soomaaliyeed u istaageen in ay caawiyaan walaalahooda Soomaaliyeed culumadii u istaagtay waxaa kamid ah Sheekh Cabdul Hayy oo markaasi baaq u diray ummadda Soomaaliyeed akoonka ku qoran dhabarka dambe ee Sheekh Cabdul Hayy ayaa ah kan loo cilaamiyay in ay ummadda Soomaaliyeed ugu caawiyaan bulshadaasi walaalaheena ah kii aan waxba awoodin xitaa walaalkiis awooda ha gaarsiiyo asagoo u sheer gareynaya muuqaaladan hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh barnaamijyadeena haddii uu ku cajabiyey like share iyo subscribe-ka hanaga ilaabin si aad inoo dhiirigelisid fikirkaagana waa inoo muhiim ee noogu reeb commentiga